بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan isugu imaanay dhul dhaxaltooya oo aanu ku arleenahay oo ku yaala warshada caanaha waxaana dadkii dhaxaltooyada iska lahaa oo reer gacal maxamed dhulka shalay dawladii waxay nooga qaaday dhul danguud warshada caanaha lagu sameey jiray ilmaha Soomaalida caanaha lagu sameey jiray raaliyaan ahayn waa ku qanacsanayn wadanka wax lagu qabanayay dadka ayaa ku soo korayay maanta danguud way ka baxday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamed waxaan ka codsanayaa in dhulka shalay danguud nooga qaaday maanta waxaan u taaganahay dhulkeena in noola soo celsho danguud wuu ka baxay shakhsiyaad ayaa siisteen ra'iisul wasaare xamsi dhulka anaka dhaxalka u lahayn ayuu dad shakhsi dhagax saaray warqadii shalay nooga qaaday oo nolol ostadi ahayd oo dib in ugu soo celinaa dawladda hadii ka maaranto waa haysana waa taas galkaasay noogu jiraan anaka ayaa iska leh dad maata iska leh dad maras ayaa iska leh dad agoon ayaa iska leh dad waayeela ayuu ka dhaxeeyaa intaan meesha fadhiday in kala maqanaya iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in arinteena waa markii labaad cabashaan nahay xaq baan ku leenahay anaka iska leh waxaan rabnaa inuu wax nooga qabto oo warkeena tixgeliyo oo soo farageliyo dad ayaa la sii shakhsi ah wili shirkadda Hormuud la dhahayo ayaa dhulkeena dhisanayso in la yiraahdo Cabdinaashir Cali Adoon dhulkeena waa u taaganahay markaan wixii ka dambeeya waxaan u malaynayaa inaan waxayna ku dhimo doono ilaa ya aqro waa isdaba joogina mana ka hari doono biliis madaxweyne Soomaaliya tahay wadanka adaa dawlad ka ah maanta madaxweyne Soomaaliya umadu dhixii adaa ah dadka noo dhicin ra'iisul wasaare xamsi dhul islaamiyo dhagax saarin hadda koorna waa ka hadalnay galabtan waa isugu imaanay dhulkeena dhaxaltooyada madaxweynuhu waxaan u baahanahay inaad dib noogu soo celiso ama dawladda jamhuuriyadda Soomaaliyeed ay danguud ku qabsato waxaan ku qancaynaa caanihii shalay ayay ummadda Soomaaliyeed u sameey jirtay inuu u sameeyso amba gacanteena lagu soo geliyo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد waxaan ka cabanaynaa annagoo khiyaarta meesha fadhida ah goobkii gacal maxamed warsame oo ku yilay warshada caanaha goobkaasoo laga qaada gacal 62 loona qaada danguud oo laga dhisay warshada caanaha dhulkaas mar dambe ayaa dawladdu waxay ku wareejisay shakhsi ay warqad sharci darra u siisay waxaa dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha qaranka warqadaana dekretada waxa la sheegay inuu madaxweynuhu soo siiyay madaxweyne waxa taa madaxweyne Soomaaliya waxa tahay madaxweyne qaranka shacabkoo dhan madaxweyne u tahay saga ayaa lagu doortay dhulka aad ninkaas siisay ra'iisul wasaaruhu dhagax dhigay waxa iska la reer gacal maxamed warsame dhulkaas waxa la agoon waxa la dad waayeel ah waxa la haween waxa la dad iyagu aan hadli karin oon dhihi karin dhulkeena yaa la haystaa madaxweynaha waxaan ka rabnaa cadaalad ana cali adoon ninka la Cabdinaasir Cali Adoon ayaa adda kaloo la jirta oo shakhsiyaad kaloo nala kugu sheegay in Hormuud ka soo jeedaan dadkaas naga qabo hantideena nooga celi iyagu male annakaale qodobka 7aad xarafkiisa 10aad wuxuu qorayaa dhulka danguud qof looga qaaday inaan danqaas lagu bixi karin sharci ma markaa danqaas ku siiso hadii dawladdu ka kaftoonto danqaas ma bixin maysa waxay ku celinaysaa qofka iska lahay dhulka marka anaga iska leh reer dhaxaltooyada gacal warsare gacal maxamed warsame iska leh madaxweynaha dadka ku soo celi cadaaladan ka rabnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ku daawanaya maanta wixii adduunyo la dhaafsado berita aakhir laga badbaadi maayo dhulka masaakiina iska leh ina cali adoon ka tarbiilo gashaday darbiyo ku wareejiyay jiingad ah oo ku qoray burka waa dhulka warshada caano ka soo horjeeda xarada la yiraahdo xara agoon iyo haddana loo yaqaan imaaraadka dhulkaas ina cali adoon nooga qaad annaga iska leh ina cali adoon waxaan leenahay warniyo wada hantideena banaysato sharciga ilaahay wuxuu noo ogolaanayaa inaan dhiigaada banaysano adiga inta kula joogto dhulkeena nooga leexo na kala badbaadi sharciga ilaahay anu kala badbaadi
qaranka nagu kala badbaadi dhulkeenna ka bax baabuurta ku jirta iyo katarabiilka ku jira iyo amiin galabta meeshan waxaan isugu nimiday annagoo ka mida dhaxaltooyadii gacal maxamed warsame sugurow ilaahay ha u naxariisto dhul ay naga boobayaan niman oo madaxweynuhu digreeto uu ku soo siiyey sida aan macnaha dabagal badan oo sameynay iyo warbixino badan oo ogaanay dhulka taariikhdiisa iyo odayaashii iga horreeyay ayaa sheegay iyo qodobada markii qof dhul laga qaado dan guuda qodobada qabanaya hadhow macnaha markii loo celi tago odayaashii iga horreeyay ayaa mataqaanaa sheegay waxba saas u geli maayo kaliya waxaan rabaa inaan la hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waddanka maanta madaxweynuhu adiga ka madaxweyne ah shalay markaad soo naqanaysay waxaan islahayn odawaaye araga oo hore madaxweynuhu soo naqday ayaa idiin yimiday aad ayaan kuugu dabaaldegaynay waan kuu farxaynay maanta laakiin waxaa noo muuqatay inaad dad shakhsiyaadahoo lacag si fudud ku helo lacag haysta inaad dad masaakiina aad xoolihii uga dhacaysa ayaa noo muuqato magaaladan waxa ka dhacaya Soomaaliya adaa madaxweyne ka ah waxa alla wixii ka dhacana oo khalad ana dambigeeda adaa ilaahay wax ka weydiinaya adduunkana wax laga weydiinaya madaxweynaha waxaan u sheegaa anoo si naxariis la uga codsanay inuu dhulkaas dhaxaltooyada ah sida odayaasha aad u maqlayseen ay sheegeen hergacal maxamed warsame sugurow waa dad aad u badan dad waayeelaha ku jira dad mataqaanaahay aan socod karnaa ku jira waa dhul agoomu leedahay waxaad ogtahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiska uu ku yiri qofkii mataqaanaahay taaka dhulka kamida qof si booliya uga qaata dawaqahu Allahu yawm al-qiyamah sab'a ardin todobada arda ayaa ilaahay qoorta u gelina xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud todobada arda in qoorta lagu geliyo hadhow ma qaadi kartid adduunka hadda joogtaa ka fiirso rasuulkuna uu xadiis kale ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam waqtiga uu gaaban aad uma faahfaahin karno laakiin markaan soo khulaasayno qofku 60 sano haduu gaaro ilaahay sidiisaba waxa waa wax cudurdaar oo leeyahay qofkaas ma jiro cudurdaar kama loogama tagin waxa waaye qofku haduu mar oo 60 sano gaaro cudurdaar waa u dhamaaday maxaa yeelay waayo ku filan cimri ku filan ayaa ilaahay siiyay aduguna maanta nin waxa taa Soomaali markii labaad madaxweyne ka naqday oo way aragnimo ku filan wad leedahay dhulkaas waxa waaye taariikh uu leeyahay gacal maxamed warsame sugurow oogeen ayaa iska lahay beer oo asugu uu leeyahay jalo uga baxay aheeday cid taqaana beer u beeranay aheeday dawladda siyaad baraasi dan guuda uga qaaday oo ka codsatay in dhulkan warshad oo caana laga sameeyo oo Soomaalida ilmahooda lagu qoodiyo asigana waxa la yiri warshadaas ayaad ka shaqeynaysaa cid taqaan gacal maxamed waa taqaana warshadu ka shaqay jiray oo ma taqaanahay maadaama ninka beerta iska lahay oo ahay